Saliidda laga soo saaro midhaha sisinta ayaa ka mid ah saliidaha ugu faa'iidooyinka badan ee Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala adduunkan korkiisa keenay. Inkastoo dadkeenu ay saliiddan isticmaalaan, haddana waxaa dhici karta inaanay ku baraarugsanayn qiimaha iyo waxtarka saliiddani ay leedahay. Waxaanaynu muuqaalkeennan ku arki doonaa 10 faa'iido oo laga diiwaan geliyey saliidda laga soo saaro midhaha sisinta. Faa'iidooyinkaas oo kala ah: 1. Saliiddan waxaa ku jira nooc kasta oo dufana oo jidhku u baahan yahay, mana laha wax dhibaato ah haba yaraatee. 2. Saliiddan oo lagu duugo cagaha hoose habeenkii inta aanu qofku seexan, waxay qofka qaabka u marsada jidhkiisa siisaa deganaansho badan iyo hurdo raaxo leh. 3. Maaddooyin badan oo saliiddan ku jira ayaa dhisa maqaarka qofka iyo lafaha marka la marsado iyo marka cuntada lagu darsadaba. 4. Saliiddan oo aad maalin kasta 2 jeer cuntada ku darsato waxay isdayn doontaan calool istaaggii kugu soo noqnoqon jiray. 5. Waxaa saliiddan ka buuxa faytamiin A iyo faytamiin E iyo macdanta magnesium, calcium iyo fosfoor, sidaa darteedna waxay nafaqaysaa timaha. 6. Saliiddan oo inta lagu luqluqdo afka lagu hayo 10 daqiiqo waxay meesha ka saartaa bakteeriyada ku dhalata ciridka iyo ilkaha. 7. Saliiddan oo si joogto ah jidhka loo marsadaa waxay ka hortagtaa kansarka ku dhaca maqaarka. 8. Saliiddan marka jidhka la marsado waxay daweysaa nabarrada gubashada ee jidhka ka muuqda iyadoo tirtirta raadka gubashada ee ka muuqda maqaarka jidhka. 9. Waxaa saliiddan la mariyaa oo lagu daweeyaa carruurta is-xoqda maqaarkooda. 10. Saliiddan oo jidhka la marsadaa habeenkii waxay daweysaa rheumatism-ka iyo jilbo xanuunka.